بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يلكوسو dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee xogta ciyaaraha. Qodobada aad markaa kula soo doontaan wararka iyagana waxa kamid ah heshiiskii kooxda Juventus ee dalka Talyaanigu ay kula wareegi lahayd ciyaaryahanka difaaca uga dhigay Ajax ee Magis Delight oo burbur ku yimid. Manchester United oo qarka u saaran saxiixa Bruno Fernandes xidiga qadka dhexe ee xulka qaranka Portugiiska. Kooxda Paris Saint-Germain oo miiska u saartay Barcelona lacagta ay tahay in ay bixiso hadii ay doonayso Neymar Jr. Arsenal oo markaan la wareegaysa xiddi ka tirsan kooxda Real Madrid. Manchester United waxa ay heshiis cusub ka saxiixatay laba kamid ah ciyaartooydeeda garoonka Old Trafford ku sugan. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan daawadayaal kugu haya channelkeena xogta ciyaaraha. Soo dhawaada. aan ku bilaabay ciyaaryahanka difaaca dambe uga dheela kooxda Ajax Amsterdam ee dalka Holland Magis Delight ayaa waxa la hadalhayay in kooxda Juventus ay dhamaystirtay wareegitaankiisa kooxdaasi isla markaana ay si rasmi u wareegi doonto Isniinta soo socota. hase yeeshee waxa la leeyahay arrinkaasi isbedel ayaa ku yimid oo Juventus waxa ay ka baxday heshiiskii hore ee ula gaadhay kooxda Ajax Amsterdam iyadoo horey loo filayay in Juventus iyo Ajax ay ku heshiin doonaan lacagta 70 milyan ah ayay Juventus beeci hore iska baxday ama iskaga baxday kaliya waxa ay gudbisay dalab 58 milyan ah oo ay u gudbisay kooxda Ajax ayaana la leeyahay aad bay uga carootay dalabka raqiiska ee ka yimid kooxda Juventus. wargeys ka soo baxa dalka Spain oo lagu magacaabo Sport ayaa haatan warinaya in Juventus ay qabto baqdin ah in kooxda Barcelona iyo sidoo kale kooxda Paris Saint-Germain ee PSG ay markaa ka afduuban karaan adeega xidigani Magis Delight iyadoo dhinaca kale ay xusid mudan tahay in Ajax ay ka careysan tahay dalabka ka yimid kooxda Juventus. Juve ayaa markii hore la filayay inay heshiiska 19 sano jirkan ay ku dhamaystiri doonto maalinta Isniinta laakiin wax walba ayaa isbedel baa leeyahay oo haatan ciyaaryahanku kooxdu rabo ayuu ku biiri karaa hadii Juventus aanay wax ka bedelin sida hore. Sports majalada lagu magacaabo ayaa inta waxa ay sii raacisay inaanay wali Barcelona meesha ka faaruqin oo uu miiska saaran yahay dalabkeedii hore ay soo gudbisay. Paris Saint-Germain ayaa ah kooxda kale ee markaa aadka ugu cadcad in ay la wareegi karto xidigani kooxda Ajax uga dheela difaaca ee Magis Delight taasoo mushaar qaali ah u soo bandhigtay xidigani. kooxda Manchester United ee dalka Ingiriiska ayaa qarka u saaran baa la leeyahay dhamaystirka xidiga qadka dhexe ee kooxda Sporting Lisbon iyo xulka qaranka Portugiiska ee Bruno Fernandes ayaa haatan u muuqda mid qarka u saaran ku biiritaanka kooxda Ole Gunnar Solskjaer oo hogaamiyo ee ku dheesha garoonka Old Trafford waxaana ay wararka qaar xataa mudaynayaan waqtiga uu gaari doono magaalada Manchester isla markaana uu tijaabada caafimaadka u mari doono kooxda. sida laga soo xigtay wargeyska Sport Witness 24 sano jirkan heerka caalamiga ee reer Portugiis ayaa soo gaari doona United-ka maalmaha soo socda ee toddobaadkan si uu tijaabada caafimaadka ugu maro kooxda Manchester United. Bruno Fernandes ayaa wargeysku qoraya in uu isagu haatan yahay shakhsiga xiiseynaya in uu u soo guuro garoonka Old Trafford ee kooxda Manchester United waxaana uu u muuqdaa mid soo dhamaan doona wararkiisu xanta ahaa ee suuqa muddada ku soo jiray haatanna waxa uu si rasmi ah ugu biirayaa baa la leeyahay kooxda macallin Ole Gunnar 100,000 oo gini ayaa la filayaa baa la yiri inuu noqon doono mushaharkiisu toddobaadlaha ah ee Fernandes halka ay kooxdu markaa kula soo saxiixan doonto inta u dhaxaysa 60 ilaa 70 milyan oo euro. Bruno Fernandes ayaa la hadalhayay muddooyinkii ugu dambeeyayba in kooxda Manchester United ay tahay kooxda aadka u doondoonaysa inkastoo kooxda Manchester City ee aadka ula xifaaltantana ayana ay doondoonaysay. kooxda Paris Saint-Germain ee dalka Faransiiska ayaa miiska soo saartay lacagta ay ku doonayso in ay uga sabarto weeraryahankeeda Neymar Jr. kaasoo doonaya inuu dib ugu laabto garoonka Nou Camp ee kooxda Barcelona. 27 sano jirkan heerka caalamiga ee xulka qaranka Brazil ayaa kooxda Paris Saint-Germain ugu wareegay lacag rikoorka suuqa kala iibsiga oo ilaa haatan aysan jirin koox jabisay 200 milyan oo pound ayuu ugu biiray kooxda PSG. haatan PSG ayaa doonaysa baa lacag intii ka badan hadiiba ay ogolaanayaan in Neymar Jr. uu ku laabto Barcelona waxaana ay dul dhigeen lacag gaaraysa 225 milyan oo pound. wargeyska Marca ee ka soo baxa dalka Spain ayaana sidaa ku warmay
Barcelona ayaa iyadoo qabta damaceeda gaarka ah waxaana ay doonayaan in ay kaliya 180 milyan oo pound ay ka bixiyaan Neymar Jr maadaama uu sidoo kale miiska u saaran yahay Anthony Griezmann oo isaguna 120 milyan oo pound ugu imaanaya kooxda. Neymar Jr ayaa muddooyinkii dambe aad loo hadal hayay in uu markaa doonayo dib ugu laabashada garoonka Nou Camp ee kooxda Barcelona oo haatan xiiso ka helayo halka. hase yeeshee PSG waxa la leeyahay ma doonayso wax ka yar 225 milyan oo pound in ay markaa kaga sabarto weeraryahankaasi. maalmihii la soo dhaafay ayaa la hadal hayay in markaa Barcelona ay doonayso in laba ciyaartoy iyo 180 milyan ay siiso kooxda PSG. labada ciyaartoy oo kala ah Philippe Coutinho iyo Rakitic oo qadka dhexe isna ka ciyaara. kooxda Arsenal ee caasimada dalka Ingiriiska ee London ka dhisan ayaa doonaysa inay la wareegto xidiga weerarka uga ciyaara kooxda Real Madrid ee Lucas Vazquez. Arsenal oo aad moodo markaasi mid ay ka go'an tahay heshiiskan ay kula wareegayso Lucas Vazquez ayaa xilli horeba miiska saartay dalab 35 milyan ah si ay si dhaqso ah ugu dhameystiraan heshiiska xidigan. wargeyska fadhigiisu yahay magaalada Madrid ee AS ayaa dhinaca kale sheegaya in wada hadaladani la soo afmeeri doono ama la soo afmeeri karo toddobaadka soo socda isla markaana uu Vazquez si dhaqsiba ah u noqon karo xidig ka tirsan kooxda Gunners-ka. Lucas Vazquez ayay ka go'an tahay baa la yiri in uu soo dhaqaaqo horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska waxaana uu doonayaa inuu xulkiisa Spain boos ka helo tartanka Euro 2020 isagoo Emirates Stadium u arka meesha uu ku haboon ee uu ka ciyaari karo. dhinaca kale iyadoo ay dhawaan Santiago Bernabeu soo gaareen xidigaha kale ah Eden Hazard iyo Luka Jovic ayay u badan tahay in 28 sano jirkani uu kursiga kaydka la daris noqon doono xilli ciyaareedka dambe haddii uusan haatan boos ka raadsan oo uusan istaga tagin garoonka. waxaa intaasi dheer in Los Blancos ay baahi weyn u qabaan inay iska iibiyaan xidigo safkooda ah si ay markaa u helaan lacag ay mar kale ku sameeyaan saxiixyo waaweyn. kooxda Unai Emery uu hogaamiyo ee Arsenal ayaa ku kale ah baa la yiri tartanka Lucas Vazquez balse waxa ay loolan markaa kala kulmayaan baa la yiri waqti dambe ah kooxda Bayern Munich, Inter Milan iyo Paris Saint-Germain walow iyagu ay u muuqdaan kuwa ugu cadcad ee la wareegi kara xidigan. Vazquez ayaa wararku intaasi waxa ay ku darayaan inuu la fariistay tababare Zinedine Zidane isagoo u sheegay in Arsenal uu u arko kooxda ugu haboon ee uu ku gaari karo hamigiisa dhow ee kubadda cagta. macalinka ayaana leeyahay waxa uu sheegay in uu ku garabsin doono wixii hamigiisu yahay. kooxda Manchester United ayaa maanta waxa ay heshiisyo cusub ka saxiixatay ciyaartoydeeda kala ah Andres Pereira iyo sidoo kale ciyaaryahanka da'yarka ee lagu magacaabo Alexis Tuanzebe kuwaasoo kala saxiixay heshiisyo cusub iyadoo markaasi xidigan lagu magacaabo Pereira uu u saxiixay kooxdiisa heshiis ku eg 2023 halka ciyaaryahanka kale isna uu saxiixay 2022 heshiis ku eg. labada xidigba horay waxay ugu sugnaayeen garoonka Old Trafford haatanna heshiis waqti dheer ah ayay la galeen kooxdooda. Frank de Jong xidiga kooxda Ajax Amsterdam qadka dhexe uga ciyaarayay oo ay iibsatay Barcelona ayaa si rasmi ah maanta caafimaadka ugu maray kooxdiisa Barca iyadoo si rasmi ah loogu soo bandhigay saxaafadda. caafimaadka ayuu ka gudbay Frank de Jong si markaa uu uga mid noqdo ciyaartoyda kooxda Barcelona ee garoonka Nou Camp ku ciyaarta. 75 milyan oo pound ayay kula wareegtay Barcelona xidigan xilli ciyaareedkii hore isagoo amaah ugu dheelayay kooxda Ajax. daawadayaasha qiimaha wararkii ugu dambeeyay ee xogta ciyaaraha ayaan intaa ku soo gabagabeynaya. mar walbana waxyaabaha ka soo kordha dhanka isboortiga kala soco channelkeena xogta ciyaaraha.